Stick around, I'll show you how. Hit the subscribe button and click the notification bell to be part of اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر واتبعها ولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان مسلمين الصوماليين meel walba ay joogaan gaar ahaan kuwa kaasal waxaan u sheegaynaa in masaajidkii Altoba aanu furnay alxamdulillah oo salaadii lagu soo oogayo iyo masaajidada kale ee kaasal dhamaantood ay furan yihiin salaadii taraawixdana aanu bilawnay xalay insha Allah taala laakiin ay jirto reegalkii oo soo saaray iyo sharciga iyo qawaaniintii Jarmalka oo soo saaray oo ay tahay nin walba saligiisa inuu soo qaato iyo kii afka lagu xirayay inuu soo qaato shuruudaha ka mid tahay iyo abshtaan in la soo jirsado ii sheeg taasi nimco ilaahayna siiyo waaye labadii bilood oo la soo dhaafay ma aanan haysan meel aan ku tukano guriyaha ayaan salaad ku oogi jirnay marka Soomaalida ku nool kaasal waxaan u sheegaynaa insha Allah taala inay soo xaadiraan salaadiina aan hadda tukano oo shan salaadood masaajidka lagu oogayo alxamdulillah taasina waa nimco ilaahayna siiyay cudurkan iyo aafadan jirtana ilaahay ummadda muslimiinta ka kor qaado iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed marka insha Allah taala waxaan leenahay masaajidka hala soo xaadiro oo maaragtay hala imaado salaadii waa lagu tukanayaa hadda wixii ka dambeeya inkastoo sharciga Jarmalkana uu hogaansanaanayno insha Allah taala Soomaalida inta badan waxay dhahdaa maxay tahay masaajid uu kala oo abstand hal mitir il soo jirsanayo oo salaad ma ahan dadka qaarkiisaan ka maqlaayay laakiin waa sharci qawaaniin wadanka u degsan ma dhaafi karno marka hadda anagoo isku dhagan hadii oo naloo wada imaado marka waxa waaye waxay noqonayaan in masaajidada dibna looga xiro marka insha Allah taala waxaan u sheegaynaa Soomaalida in ay insha Allah taala ay salaada ay ku soo ogaan masaajidda ay noo furan yihiin masjid Toba masjid Nuur inta labada masjid way furan yihiin alxamdulillah salaadahan marka waa lagu tukadaa marka insha Allah saas u ogaada oo halaga soo baxo guriyaha oo salaadaha lagu oogo masaajidada insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Bismillah. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Ramadan Kareem ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda Soomaalida waxaan ogeysiinaynaa in la furay masjidkii magaalada Kaasal gaar ahaan masjidka Toba lagu tukan karo taraawixda taajidka shantii salaadood ee faralkaha iyo Ramadan taba de alxamdulillah baan leenahay inkastoo xaaladii abshanaan dhamaan sidii sheegayaan gaaladu ee la kala durkayo salaada ilaahayna intaan wax dhex naga dulqaado si aanu salaadii la iskugu soo dhawaado kiisaas ha ogaadaan ummadda muslimiinta oo dhan. Assalamu alaykum dhamaan waa salaamiya muslimiinta meel walba ku nooshahay waxaan ogeysiinayaa dadka ku nool magaalada Kaasal in uu masaajidkii taraawixdii la bilaabay hadda waxaan ku codsanayaa muslimiinta ku nool Kaasal inay masaajidka soo camiraan aad iyo aad u mahadsantiin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dhamaan ummadda muslimka iyo walaalaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Kaasal waxaan ogeysiinaynaa in cudurkii iyo wixii naga dhamaaday alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay baa mahad iska leh waa bil Ramadan meel lagu nagaadana waxa ugu fiican masaajidka oo la joogo masaajidkii dib baa loogu furay uu furan yahay sharciga dawladana waa lagu dhaqmayaa oo abishtaan baa la sameeyay
marka waxaan ka codsanayaa walaalaha masaajidka u dhow iyo masaajidada in lagu soo cibaadaysto oo la soo xaroodo masaajidada la soo camiro. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم، رمضان مبارك. waxaa la ogeysiinayaa dhammaan dadweynaha ku nool dalka Jarmalka gaar ahaan magaalada Kassel in loo furay masaajidadii bisha Ramadaan si aan ugu tukano 5 waqti iyo taraawiixda. waxaan idin ogeysiinayaa inaad ka soo qayb gashaan taraawiixda iyo salaadaha. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.